بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصوماليين سماها شعل يورير وغوي باري ميلا جوكتان با وقتها هايدين وعنادو مانتا ومالين وين مانتا مقعين مدحين بناني مانتا مانديق هشينا مانتا عانيه كمال مانتا ومالين محاكل عينو مهدينينو الله سبحانه وتعالى بغركا وحوي خالقا وحوي محاكل راسقا وحوي قديرك وحوي وحول بيسقو محاكل هذا مقرنسا سمايا ومانتا إنو suurtageliyey xalay inoo suurtageliyey in lagu dhawaaqo xubnihii baarlamaanka waqooyi bari Soomaaliya state-ka midnimada waxa weeye Soomaaliya state-ka waxa weeye maxaa ku leeyahay difaaca waxa weeye maxaa ku leedahay dab maarta sharafta Soomaaliyeed xildhibaanadiisii maxaa ku leedahay labaad oo xalay lagu dhawaaqay maantana la dhaariyay waxaynu leenahay marka ugu horeysa hambalyo waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xilka aad mas'uuliyadda aad qaadeen ilaahay ha idiin fududeeyo mas'uuliyaddu waa wax weyn waxa la yiri cirkaa diiday oo dhulkaa diiday oo aadana qaaday waxaana lagu nisbeeyey inuu yahay waxa weeye maxaa ku leedahay mid dulmi badan oo waxa weeye jaahila waxa weeye oo ka jaahila mas'uuliyadda uu qaadayo sidaa darteed waxaan idin xusuusinaynaa mas'uuliyadda aad qaadeen inay tahay mid weyn oo waxa weeye ilaahay agtiisa ka weyn oo dadka aad matashaan eed magacyadooda sidataan eed mudanayaasha u tihiin ku weyn oo duruufta ay magaranaysaa la nool yihiin waxa weeye maxaa ku leedahay waxa idinka sugayaan ay aad u weyn tahay marka wad imtixaaman tihiin waxa idin bilowday 5 sano oo imtixaan ah oo laga bilaabo maanta markii la idin magacaabay iyo markii aad dhaarateen idin bilowday 5 sano dadka waxa weeye reer waqooyi bari wixii u hagaagana idinka u hagaajiyay wixii ka xumaadana idinka ka xumeeyay waa inaad taa ku xisaabtantaan waxaana idiin sheegayaa oo idiin cadaynayaa wax kasta oo dhaca ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye waxa sababa waxa weeye maxaa ku dhaca bini aadanka qadarta ilaahay waxa ay leedahay asbaabtaana waxa la yimaada aadanuhu marka ay fahmaan in ay waxa weeye maxaa ku dhaca wanaagga iyo samafalka iyo horumarka iyo wadada guusha markay fahmaanna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu u fududeeyaa wuu ku toosiyaa wadada sidaasayna ku horumaraan marka ay wadada ka leexdaan oo wadooyin qalloocan oo maartay qardajeexa ay maraanna waxa weeye waxa ay la kulmaan wixii ay lahayd wado walba waxbay leedahay marka wadada aad qaadaan waxay ka bilaabanaysaa guddoonka aad doorataan wadada aad qaadaysaan waxay ka bilaabanaysaa guddoonka aad golihiina u doorataan ilaahay waxaan ka baryayaa inaad guddoon wanaagsan oo diin leh oo dhaqan leh oo jeclo leh oo waxa weeye maxaa ku leedahay ma garanaysaa maxaa ku leedahay aqoon maadiya iyo aqoon diimeed leh oo wadaniyiin oo dadkooda jecel iyo dalkoodaba inaad waxa weeye aad ma garanaysaa maxaan ku leedahay aad xilka u dhiibtaan oo aad ma garanaysaa soo saartaan ayaa la idinka waxa weeye waa tallaabada ugu horeysa tallaabada labaadna waxa weeye madaxweynaha aad soo saartaan iyo madaxweynaha aad soo saaraysaan waxaad ku dooranaysaan waa tallaabada labaad tallaabada saddexaadna waa sida aad u muraaqabaysaan oo aad dusha ugala socotaan oo aad waxa weeye maxaa ku leedahay ku kontarooshaan shaqada ay qabanayaan hay-adda fulintu waxa weeye maxaa ku leedahay intaasoo shaqo ayaa idiin taalla idinka ayaa markaa waxa weeye saldhiggii iyo maxaa ku leedahay bayskii dowladnimada idinka ah waxaan leeyahay ilaahay ha idin garansiiyo shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka reer waqooyi barina idinku idinla xisaabtami doonaa insha Allah bismillaahi kariim
waxaanu idiin sheegaynaa oo idinku soo celcelinaynaa insha allah talooyinka wanaagsan ee ay tahay inaad ummadda ugu adeegtaan. dhegihiinnu ha furnaadeen, indhihiinnuna ha furnaadeen insha allah bismillaahi kariim. ilaahayna ha idin guuleeyo baan leeyahay. waxaan idiin soo sheegi doonaa oo barnaamijyada soo socda aan idinku soo sheegi doonaa insha allah dadku waxa weeye maxaa ku dhahdaayey mas-uuliyiinta siday u kala dooranayaan. waxaan hal qodob oo aan ilaaway oo aad u weyn baa jira. qodobkaasina waa gobolka Sanaag iyo dadka ku nool oo maxaa ku dhahdaay gobolkiina uu maqan yahay, majoritigiisii uu maqan yahay, dadkiisiina intiisii badnayd ay maqan tahay. yacni waxa weeye qaabka aad ku keenaysaan waxa weeye waa doorashadiina guddoonka aad ku dooranaysaan iyo waxa weeye madaxweynaha saaad u dooranaysaan bay ku xidhnaan doontaa, iyo sida aad u xigmadaysaan, sida aad uga fekertaan, sida aad talada u rogrogtaan. halka tallaabooyinkii aan soo sheegay ee guddoonkiina iyo madaxdiina fulinta ee aad soo saartaan ayaa gobolka baadidoonkiisa iyo xorayntiisa iyo gaadhitaankiisa maamulkani oo maamulkani la'aantii aanu jiri karayn, taa ayaa laydinku qiimayn doonaa. ilaahay subxaana wa tacaala ha idin waafajiyo, waana idiin soo ducaynaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.